wiilkaygiiyow diiqu yuusan noqon mid adiga kaa wanaagsan maxaa yeelay salaada subax ayuu qayliyaa diiqu adiguna waad hurudaa. assalaamu calaykum, waxaan ahay qaasim maxamed. ku soo dhowow muuqaal kale. kicidda xilli hore subax kasta waa hadiyad qiimo sare leh oo aan qaarkeen dayacno maalin kasta. qiimaha ay leedahay inaad xilli hore soo toosto subax kasta waxaad haleelaysaa ducadii xabiibkeennii muxamed sallallahu calayhi wasallam ee ahayd ilaahow ummaddayda u barakee kallahaadooda, waana duco la hubo aqbalkeeda marba haddii uu yidhi suubanaheenna muxamed sallallahu calayhi wasallam. qof kasta oo dunidan dhigtay magac iyo maamuus weyn, gaal iyo muslimba, kuwa hadda nool iyo kuwa geeriyoodayba, sida qorayaasha alifay buugaagta faa'iidada badan ee la akhristo, aqoon-yahanada wax dhigista iyo wax curinta leh, muhandisiinta soo alifay waxyaabaha nolosheenna fududeeya ee aan sida maalinlaha u isticmaalno, iyo kuwo kaloo badanba waxay ka sinaayeen dhammaantood soo kicista xilli hore. marka laga soo tago barakada ku jirta soo kicista xilli hore 3 saac ama 2 saac ka hor wakhtiga salaada subax, waxaad helaysaa saacado aad ku abuurato caadooyin cusub sida inaad cibaadaysato, wax akhriso, wax qorto, wax barato, jimicsato, qabsato howlo muhiim ku ah, maadaama jawigaas uusan lahayn waxyaabaha qofka dhiba sida buuqa, waqti lumiska, mashquulinta iyo wixii la mid ahba. si aad u soo toosto xilli hore caadana aad uga dhigato waxaad u baahan tahay inaad qaaddo tallaabooyinkan soo socda. seexo xilli hore. guusha ka adkaanta nafta iyo soo kicista xilli hore waa seexashada xilli hore. waa inaad seexataa xilli hore ugu dambayn 9:15 ilaa 10 habeenimo ama ka horba si aad u hesho macaanka hurdada iyo awood aad ku soo toosto. marnaba suurtagal ma ahan in aan la qaabayn seexashada xilli hore si loo helo awooddii lagu soo toosi lahaa xilli hore. jiheey maskaxdaada. jirkeenna mashiinka maamula kana shaqaysiiya waa maskaxda. ku wargeli maskaxdaada waxyaabaha aad qaban doonto marka aad ka soo toosto hurdada kadib si ay kuula shaqayso. u xadid maskaxdaada waxyaabaha aad qabanayso marka aad soo toosto kadib. tusaale ahaan waxaan ka soo kacayaa hurdada 3:15 habeenimo, waan weyse qaadanayaa, 2 ragcadood oo salaatuleyl ah ayaan dukanayaa, juz qur'aan ah ayaan akhrisanayaa, waan ducaysanayaa oo Allah ayaan baryayaa si uu iigu dambi dhaafo, cibaadadiisa iigu fududeeyo, iigu naxariisto, amuurahayga iigu saqiro, khaatumadana iigu hagaajiyo, jannadiisana i geliyo. kadib waxaan dukanayaa 2 ragcadood ee sunnada ah ee ka horaysa salaada subax, taasoo nabigeenni muxamed sallallahu calayhi wasallam ku tilmaamay mid ka khayr badan adduunyada iyo waxa dhex yaalla oo dhan. kadib salaada subax ayaan dukanayaa, adkaartii subaxda ayaan akhrinayaa. kadib haddii aan ahay arday waxaan ku ceshanayaa qaar ka mid a cashiradeydii iskuulka ama jaamacadda. haddii aanan arday ahayn waxaan samaysanayaa caado wax akhris oo aan ku kobcinayo ogaalka maskaxdeyda kuna horumarinayo nafteyda, iyo wax allaala wixii ii muhiimsan ayaan qabanayaa ka hor inta aanan shaqada aadin ama dadka aysan soo wada toosin. kadib tallaabadan ayaa kuu noqon doonta mid aad mahadiso oo aad ku gaarto darajooyin sare iyo guulo badan insha allah. u dulqaado naftaada inta ay caado dhammaystiran kaaga noqonayso soo toosidda xilli hore. waxaa muhiima inaad xasuusato in naftaadu aad kala kulmi doonto iska caabin aad u fara badan maadaama aysan hore ula qabsan caadadan. iska caabinta naftaada waa mid socon doonta muddo kooban, waxaana xaqiiqo ah caadada soo toosidda xilli hore inay aad uga fududahay caadooyinka kale marka loo fiiriyo la qabsigeeda. keliya culayska ugu badan ay naftaada ku soo saarayso wuxuu ku kooban yahay maalinta 3aad ama maalinta 4aad, kadib si dhaqsi ah ayay ula qabsanaysaa naftaada. ugu dambeyn, haddii aad ku guulaysato soo kicista xilli hore oo ay caado kuu noqoto waxaad noqon doontaa qof shakhsiyad adag iyo go'aan leh, hoggaankana u haya naftiisa, kana firfircooni, wax soo saar iyo maskax wanaagsan dadka kale ee aan soo toosin xilli hore. waxaadna ka xoroobaysaa noloshii ku dhisnayd walwalka iyo maxaan qabtaa. hagaag inta aan goordhow ku wada kulmi doono muuqaalka xiga waxaan ku leeyahay aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalka. mahadsanid.